ay magaalada xamar lagu xidh oo ay yeelatay beesha bahma jeerteen oo ka tirsan beelaha guuleed garaad waxay gaadheen qodobadan soo socda lambar 1 inay isku xukumaan sharciga islaamka dadkana kula dhaqmaan lambar 2 inay midoobaan si dhammaystiranna wax u wada qabsadaan lambar 3 inay ka madax bannaan yihiin dhammaan dhinacyada siyaasadeed lambar 4 waxaa shirkii lagu doortay 2 caaqil hashu yeelatay shir waxay go'aamiyeen inay yeeshaan hogaamiyayaal waxaana goobta lagu doortay 2 caaqil iyo 2 jawaabdaar caaqilkii walba uu leeyahay 2 jawaabdaar iyo gole guurti oo ka kooban 7 xubnood oo ka dhaxeeya beesha bahma jeerteen magacyadii caaqilada waxaa ugu horeeya jiif caaqil maxamed dhuux cali burco iyo caaqil jaamac axmed kooreeye labada caaqil mid waliba wuxuu leeyahay 2 jawaabdaar oo la shaqeeya caaqil maxamed dhuux cali burco waxaa weeye jawaabdaaradiisu cabdikhatin xaaji siciid kabayar iyo ibraahim cumar abokor jaamac axmed jaamac axmed kooreeyana waxaa jawaabdaaradiisu waxa weeye cabdi nuur budeeye iyo cabdiweli jaamac uryaan toddobada guurtida waxay kala yihiin ibraahim cabaade bulaale cabdilaahi xuseen culujoog maxamed yuusuf cabdille maxamuud anshaad aadan maxamed cali shire shiikh barre yuusuf xuseen axmed jaamac faarax waxay kale oo beeshu taageero u muujinaysaa shirka ay ku leeyihiin waddanka ingiriiska ee magaalada London beelaha dhulbahante oo lagaga hadlayo aaya ka talinta dadka degan gobollada Sool Sanaag iyo Cayn والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka hore go'aamada beesha qodobka koowaad waa soo dhaweynayna ay qaadatay marka labaadna taageerada shirka dadka Sool Sanaag iyo Cayndiga waanu taageeraynaa aaya ka tashigooda dadka gobolada dega aqoon-yahankooda siyaasigooda isimkooda uqaalashooda waxgaradkooda inay maamul samaystaan haddii ay isku raaceen oo ama garteen ayooda inay ka tashadaan deegaamadanna waanu ka soo dhaweynaynaa mar labaad waxaanu leenahay maamulada hareeraha ka xiga hal la taageero dadka aaya ka tashigooda marka la taageero ay wax noqdaan ayay idinna wax idin tari karayaan waxna idinla qabsan karayaan waxaan ku soo gabagabaynayaa qodobka
waxaan mar labaad codsanaynaa dadka in loo daayo masiirkooda iyo katashigooda oo aan ismadooda masaafuris ahaan qaxoonti ahaan dadkooda dalkooda loo daayo inay taliyaan siyaasigiisa aqoon-yahankiisa waxgaradkiisu oo ayuhiisa ka tashado maamul ay ogol yihiin gobollada markay u dhistaanna ciddii markaa danaynaysa ee la walaala ee la darisa ay wax la qabsato laakiin laga daayo caburinta iyo toojarka iyo kala jiidashada dadkii dirirta kalshaala dhex martay waxaan ugu baaqaynaa ee walaalaha inay nabad isugu yimaadaan wixii dhintayna allahu naxariistay laga samro waxa dambana loo taliyo siyaasiyiinta iyo ururada siyaasadeed ama maamulladana waxaan leenahay dadka nabadooda ha la taageero oo yaan laga carqaladaynin waa dad walaala kala tegi maayaan wixii dhintayna allahu naxariisto waxa dambana nabadda ha lagagala shaqeeyo ayaan maamulladana u soo jeedinaynaa dadkana u soo jeedinaynaa midnimada beesha agaasintay ee dadka isu keentay waa mahadsan yihiin waana ku salaamaynaa waana ku taageeraynaa doorashada ay doorteen madax hogaamisa beesha iyo dadka deegaanka laha labadaba hadduu qofku xil qaado beesha waxa uu hoggaan u yahay dadka meesha degan oo dhan buu hoggaan u yahay hadduu caaqil yahay hadduu garaad yahay hadduu wax lamid yahay marka waa ku soo dhawaynaynaa waana u mahad celinaynaa waxaanu kaloo taageersannahay siyaasiga Ismaaciil Maxamed Jaamac sida uu u soo jeediyey Soomaali wixii midaynaya ee qaran ka dhigaya ee ummad ka dhigayaan waxaan ku darayaa dadka deegaanka ee lamidka ee dariska ee ahaaliga ee gobolada kala degan yay u yihiin madax iyo hoggaan iyo aqoon dadkuna wuxuu yani sharaftiisu ku midaysan tahay kala dambaynta iyo isxukunka iyo sharafta iyo ismaqalka waa taageeraynaa shirka waana ducaynaynaa cadowgeenna allaha jabiyo waayo markaad saa idinku wanaagga u wadaan dadkiina yaryara ku hoos nool waa idinla wadaya السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام حفلة وحن لو دورتي مدنياشا أميرينتا يعني هجامينتا رايحة مرلوحي أي دورتين اللي وين وضع دورنا وحي اللي دورتي وأخرى اللي بانو كنا هوانو تانية ديننا dad islaam mar hadaynu nahay inaynu isfarro waxa wanaagsan waxa xun iska nahyino ayaa taasna waa muhiim oo diinta islaamka sida waxaan xafladaas u soo hagaajinay ee isu waafaqnay sida loo wado koobaad waxaan leeyahay odayaasha oqaasha la doortay odayaal horta waad ahaydeen markii horeba waxaa hadda magaca laydinku calaamadiyey inaad xilka sii kordhisaan oo odayaasha aad ahaydeen aad sii xoojisaan faraska baa la yidhi waxaa jeedalka loogu dhuftaa inuu sii kordhiyo orodka odayaasha horta markii hore waxaa loogu sii xoogxoogsaday oo mataqaanaa calaamadda loo sii saaray sidii ay mataqaanaa ahaayeen inay ka siyaadiyaan waxaan kaloo leeyahay naftiinna iyo ehelkiinna iyo ummaddaba ilaaliya haa horta anigoo ah jaamac axmed kooreeye layna doortay xilli lay saaray caaqil magaca la yidhaahdana laygu magacaabay horta marka hore waxaan u mahad celinayaa oo salaamaya dadweynaha soo camiray xafladda dhalinyaro odayaal uqaal culimo yaan dumar gabdho islaamo ayeeyo yaan u mahad celinaya waxaana ku salaamayaa salaamta islaamka ayaan ku salaamaya hadal dabadii iyo hamba dabadeed midna lama sugo
reerkayaga dhigay xafladda dhigay beesha xafladda dhigtay hadafkii ay ka socdeen iyo hadafkii ku kalliifay wakhtigan oo abaara oo jiilaala oo dhibaata iyo haraadina hayo warqaddii baa ka sheekaysan hadafka ay ku socdaanna warqaddii baa ka sheekaysan annaga waxaa naloo doortay amase hadafka yagu yahay ama aanu ka dullay unbaan taataabanayno hadafka aanu ka dullaynimaya wuxuu yahay markaanu aragnay dadweynihii ama soomaalida ama dadweynihii sida ay tahay ay u kala daadatay ayay nala noqotay argagax nala noqotay tiin war malaha urur baa idinku filan sidaa darteed baa wakhtigaa isu kaya keentay haddaanu isu nimi sidaa laydiin sheegay inaanu midowno aqil maxamed dhuux cali burco waxaan u jeclaa bal marka hore gaar ahaan anigu xilkaa lay magacaabay in aan sida ugu fiican aqoontayda oo aan kala hadh lahayn in aan u guto anigoo aad iyo aad u adeegsanaya ugu dhowaanaya sharciga islaamku wixii uu ina faray dhammaanteed inaan dhammaan ku maamulo waxaan taa ku labaynayaa dee kollay nin aad loo yaqaano oo dhuux cali burco la yidhaahdaa yaa i dhale aniga waxaan jeclay kollay dariiqiisii inaan isku dayo inaan maro وقتين